Bismillahirrahmanirrahiim. Kulan haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka gunta qubanaha wararka caalamka iyo Soomaaliya qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya Masar iyo waliba Sacuudiga oo diiradda saaraya Eritrea halka Imaaraadkana ay xoojinayso xiriirka Itoobiya. Haddaba doorka Masar Sacuudi Carabiya ee ku yeelan karto Eritrea iyo waliba sidoo kale xaqiijinta Itoobiya waqtigan iyadoo aan ognahay in Itoobiya iyo Eritrea xiisad colaadeed wali ay ka taagan tahay. Maxaa ka soo kordhay mashruuca labada dhinac ee halkaasi ka aloosan waqtigan la jooga? Barnaamijka ayaanu ku qaadal dhigi doonaa. Waxaa sidoo kale aad ku daawan doontaan guddiga doorashooyinka Itoobiya oo korinaya waqtiga diiwaangelinta musharaxiinta iyada oo hadda la xaqiijinaya in 57 xisbi ay bilaabeen diiwaangelinta. dalkaasi Itoobiya waxaa loogu dareeri doonaa dhawaan doorashada diiwaangelinta guddiga taasi oo ay ku dhawaaqeen in waqtigan qabanqaabadeeda ay si xoogan markaasi ugu loolamayaan sidii waqti dheeraad ay u heli lahaayeen. iyo waliba sidoo kale waxaad kaloo barnaamijkeena gunta qubanaha wararka caalamka iyo Soomaaliya aad ku daawan doontaan Itoobiya oo ka cabsi qabto in ay saameeyaan isbahaysigan cusub ee dalalka Carabta ee xiriirkooda sii adkaanaya. walibana waxay u muuqataa in Eritrea waqtigan ay heli doonto garab siyaasi ku ah ee dhanka Ethiopiana si xoogan u jibin karo. haddii Ethiopia iyo waliba Eritrea u muuqato talaabada waqtigan loo qaaday inay tahay mid dhaawici karto sidee xaaladda geeska gobolka ee nabad ay ku xasiloon karto. qodobadaasi iyo waliba waxay nagu soo kordho ayaan ku faaqidi doonaa gunta qubanaha wararka caalamka iyo Soomaaliya. markuu ugu horeysa waxaan ka dalbanayaa inaad channelkeena noo subscribe gareedo kana mid noqoto saaxiibada sida joogtada wararkeena iyo waliba macluumaadka gudaha iyo dibaddaba kala socda qaybada noqoto. soo dhawaad saaxiibada. aan ku bilaabay Masar iyo waliba Sacuudiya ayaa diiradda saaraya Eritrea halka Imaaraadkana uu xoojinaya xiriirka Itoobiya iyo waliba dalka Eritrea oo ah hal dal xiran balse istiraatiiji u ah ama istiraatiiji muhiim u ah badda cas. waqtigan waxaana muuqata loolanka badda cas in uu noqon doono mid ay ku hardami doonaan dalal oo ay qayb ka tahay dalalka Carabta sida ay markaasi noqdeen bartilmaameedyada ay markaasi daneynaydo caasimadda Carabta gaar ahaan Sacuudi Carabiya iyo waliba sidoo kale Imaaraadka Carabta iyadoo ay ku jiraan tartan ay markaasi saameyn doonaan ama saameyn xoogan ku yeelan karo socodka gobolka badda cas. laba mas'uul oo Carabeed ah oo xog ogaal ah oo markaasi ogaa wada xaajoojada dhawaan dhacay ayaana u sheegay madalista warbaahin ama markaasi majalad la yiraahdo iyadoo oo waliba in Masar ay isku dayso in ay dhexdhexaadiso xiriirka amni ee qotada dheer ee u dhaxeeya Eritrea iyo waliba sidoo kale Sacuudiya si loo adkeeyo saameynta Imaaraadka amarkaasi loo xakameeyo andhaha saameynta Imaaraadka oo ku sii yeelan karo xiriirka military ee Ethiopia oo u muuqata waqtigan in awoodeedii ay sare u qaado. dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed waxa ay muujinayaan in isbedel iyo waliba sidoo kale isbahaysi cusub kaga socda gobolka badda cas. marka hore Masar iyo waliba Eritrea labadaba waxa loo arkay in ay xiriir dhow ay la lahaayeen Imaaraadka Carabta balse xiriirka Qaahira iyo Abu Dhabi oo uu xumaaday sababo la xiriira dagaalka sokeeye ee Sacuudiga iyo waliba sidoo kale xaaladda Gaza. sidoo kale Eritrea oo in markaasi hogaaminaydo ama hogaamiyo madaxweyne Aziz Afwerki tan iyo waliba xurnimadii 1993 waxaana hore markaasi ula saftay Imaaraadka. Masar iyo waliba Eritrea oo doonaya in ay jiitaan Sacuudiga. Eritrea waxaana uu hore markaasi u ahayd xarunta Imaaraadka oo markaasi ka fuliyo howlgallada military ee Yemen gaar ahaan saldhigyada dekada Asab balse Imaaraadku wuxuu markaasi xiray saldhigaasi sanadii 2021 wuxuuna hadda xiriir military oo dhow u la sameynaya Ethiopia oo ah cadowga taariikhiga u ah Eritrea. guddiga doorashooyinka Ethiopia ayaan markaasi kordhiyay waqtiga loogu talagalay diiwaangelinta musharaxiinta doorashadii toddobaad ee guddiga kadib markii xisbiyada siyaasadeed iyo waliba musharaxiinta shakhsiyaadka ay soo bandhigeen caqabado farsamo iyo waliba habraaciyo saameyn karaya habka diiwaangelinta. war-saxaafadeed oo markaasi guddigu u bixiyay Jimciye ayaan markaasi lagu sheegay in waqtigii hore diiwaangelintu oo ahaa 8 Febraayo 2026 la kordhiyay
ilaa 23 Febraayo oo sii socon doono. Nebe waa guddiga doorashooyinka waxay markaasi sheegtay in laga bilaabo 9 Janaayo ilaa 9 Janaayo 2026 42 xisbi siyaasadeed ay bilaabeen diiwaangelinta ayna markaasi ku jiraan 15 xisbi oo ka tirsan 2 isbahaysi iyo waliba hal hore halka musharaxiinta shakhsi ahaan iyaduna ay markaasi sidoo kale ay diiwaan gelinayaan. Dhanka kale Nebe waxay markaasi helaysaa taageero caalami ah oo markaasi lagu xaqiijinayo hanaanka doorashooyinka Ethiopia UN-ka ayaan ansixinay heshiiska iskaashi oo markaasi bixinaya ama ay ku baxaysa $3 milyan oo dollarka Mareykanka taageero dhaqaale iyo waliba farsamo si markaasi loogu taageero diyaar garowga doorashooyinka ka socda halkaasi. waa caqabadaha ugu waaweyn markan Ethiopia u arkayso in saameyn balaaran ay ku yeelan karaan haddii aan tallaabo waara aysan iska qaadan ama aysan ka gaarin yoolkooda siyaasadeed ayaana lagu tilmaamay. waad ku mahadsantahay ilaa dhamaadka haddii aad ila soo gaartay barnaamijkana gunta qubanaha wararka caalamka iyo Soomaaliya janalkana Shariif Showno ku soo bir ka mid noqo mahadsanidin.